qaar badda ku dhacay maalinkaas kuwa weynaa awray noqdeen ilaahu awr ka yal waaniga iri kuwa kale ideen ma ogtahay qanyar waa isdhiibay 30 suuq ka badan soo haysta kuwa kale kuma tiri karo nin walba wixii laga qabto maxkamadda xarar yaale maxkamadda ifka xalane maxkamadda shiir kale iyo maxkamadda CC oo Sheekh Shariif markaas soo dhinacaas ku soo galay afar abdi bilay lahayn marqaati leedahay markay isku yimaadeen على هجوم كحدين وحي راهن مركب واسو أفجرنا بريان أفجرنا. كلنتي وعنا وناكسن كسر هذا ورئيس الجار وعن لي لنا إنه أبوان نور شاعر أو كم إذا أبوانين الصوماليات وجيت كوريسي أنا وحي وحنبارسينها بل إن دب الله بنه تاريخ دعي تطبيق 8 سنة كهر إلى لحية 8 سنة كهر وأي مقدشة أبوان كأيان دب العصام دونا وقتها سوحة السعودية دجالو دحية midowgii maxkiinta hogaamiyo kooxeedyadii iyo sidoo kale dawladda Itoobiya oo waqtiga dambe dalka soo gashay iyaduna maxkiimtii dagaal la gashay bal taariikhdaas ayaan dib ugu laaban doonaa waxa jiray abwaanka gabayo badan oo ka sameeyay dhacdooyinkaas isxigxigay ee ka dhacay gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale gabayadaas oo xasuus gooniyo ku leh ummadda Soomaaliyeed abwaan Nuur Shaacir waa ku soo dhaweynaya waxaan jeclahay bal inaad dibna geedo 17 sano ka hor muqdishona geedo waxyaabihii dhacay waxaad ka xasuusato iyo taariikhdaas gabayadii aad ka tiriday bismillaah horta saadaqow barnaamijkaasi barnaamij dheer waay waqtigiisuna waa dheeraa horta abwaannimada aniga anoo yar oo 13 sano jira bilaabay gabayga u horeeyay dadka wixii soo maagay meeshii dan iga gashaan iskaga tuuri jiray laakiin gabay Soomaaliya aan u sii daayo oo maamari iyo anjal iyo recording gala oo ummadda aan wax ugu sheego waxa uu horeeyay xilligii midowga maxkiimta dadkuna in badan baa ka faa'iideystay xilligaasna waxa iga keenay ciil maansa ciil baa la maqash niman hogaamiye kooxdii la yiraahdo baa shacabkii ku kacay ayaguna ninkii garle iyo ninkii maaragtay sunnadu ka muuqatay dhoofinayeen waxay u dhoofinayeen argagixiso Mareykanka loo dhoofinayay Yurub loo dhoofinayay wixii maartay sunnadu ka muuqato dadkii shacabkii waa ka kacay markuu kacay madfacna waa ugu dareen hoosna waa ka dhoofiyeen markii madfacu ugu dareen dadkii qaarna la dhoofinayay qaarna la leynayo cid la xisaabtamayda waa markii anagu wasiir ma rabno wax kale ma rabno xildhibaan ma rabno dadkaan rabnaa inaan shaqo ka qabanno baan waxaan igu soo dhacday inaan ka hadlo oo gabayaasha halkaas ka bilaabay oo hadayna ay sheegtay isku soo bax in tarabuunka uu ka dhacay halkaas la isku yeeray bulshada Muqdisho mas'uuliyiintii midowga maxkiimta oo halkaas joogay ay isku yeereen Sheekh Shariif Sheekh Axmed halkaas ka qodbeeyay oo yiri afar qofkii haya masraxa soo istaago bal afartaas waxa uu la jeeday iyo wixii halkaas ka dhacay bal taariikhdaas noo gal taariikhdu waa kala horeysa markii la soo gabangabeeyay bay ahayd tarabuunka muxaadarooyin lagu qabtay iyo isku soo bax iyo banaanbax oo dagaalkii soo dhamaaday oo la guuleystay mahad alle gabal la yiraahdo iyo wuxuu yiri ninkii haya 12 amwaan baan ahayno abshir baclay intaan ugu jiray 12 nin baan ahayno abwaana marka wuxuu ninkii haya afarta gabay mahad alle hogaamiye kooxda nimanka la diray oo wadankii laga saaro dhibaatada ahaa mahad alle gabay leeyahay ninkii ka tirinaya Itoobiya nagu soo duusho Tigray hogaaminaysay Mille Sanaawi Mareykan oo asaguna si gooniye noola dirsanaa yuhuudo dadka masaakiinta oo Falastiin dhameeynayay oo ilaa hadda wali cabaadkeedu baxayo afartaas ninka ayaa mikrofoonka ka hormarinaya halkaas igu kaadi gabay erga alla leeyahay jiray gabayga erga alla goorma tirida muxuu ku saabsanaa waxaan tiriyay wuxuu ku saabsanaa Ilaahay baan barinay markii shacabka haddaan ku sheegay la leeynayo hogaamiye kooxdida ay leeynayeen qaarna ay dhoofinayeen bay yiraahdeen beriyaan ka taqalusayna yoonka beri leeyahay baan soo afjarayna afar abdi bilayna wateen maxkamadda xarar yaale maxkamadda ifka xalane maxkamadda shiir kale iyo maxkamadda CC oo Sheekh Shariif markaas soo dhinacaas ku soo galay afar abdi bilay lahayn marqaati leedahay markay isku yimaadeen على هجوم كحدين وحي راهن مركب واسو أفجرنا بريان أفجرنا
marka ilaahay inuu soo tusin gabagaas ergaa la leeyraado muslimkana alla ka badbaadiyo indhahooda naga sii jeediyo aqligooda uu xiro awr ay noqdaan kuwa yaryar ida noqdaan ay is dhiibaan aan ilaahay ka bari ergaa la wuxuu ahaa ilaah kala ma jiro adiga mooyaan ilaahu islaam baan noo adiga ku taagan ilaahu ergaan ku nahay naga ajiye maanta aqbal oo ha soo celin adigu oo fiiha tahay ashahaadiidkana allow adiga ku sheegan adimada ilaahu ka qaba ha ordi waayeen alxanu afkoodana allow erna u waayeen indhahana allow olol ka galay iridha waayeen aqligana allow uu ka tago eber ha joogeen awr iyo allow ida ka yeel ururka shaydaanka adiga awood leh allow aaga laga waayay ilaahu adduunyada ku qabo idab yeesheen ilaahu adduunyada ku qabo idab yeesheen isbaariya allow aan la argo ururka shaydaanka ilaahu inkaarnay adigu ha u asxaan falnaa ilaahu inkaarnay adigu ha u asxaan fal waxa dhacday gabagaas marka habeenkii tiriye subaxii insha Allah dagaal dambana ma dhicin ay nagala soo horjeedaan waana is dhiibeen ayagoon dagaalminaya hubka naga qabta kuwa weyna awray noqdeen ilaahu awr ka yal waaniga iri kuwa kale ideen ma ogtahay alxanu afkoodana alla erna u waayo indhahana alla ololka galay iridha weyna qaar badda ku dhacay maalinkaas yaana warku gudaalina waa is dhiibeen war hubka naga qabta qanyar waa is dhiibay 30 suuq ka badan soo haysta kuwa kale kuma tiri karo nin walba wixii laga qabto sidii bay ku soo baxeen